waqtigu waa laba qaybood. Waqti ay ku habboon tahay inaad ka faa'iidaysato adiguna aadan garanaynin in uu waqtigaasi faa'iido kugu jiro, iyo waqti aad garatay faa'iidada meesha ay kaa jirto laakiinse uu waqtigu ku dhaafay. Gabadhan hooyadeed way geeriyootay, laakiinse ayadu waxay moodaa inay noosha. Bal qisadeeda aan ogaano. Hooyadu waxay ahayd mid la talisa gabadha mar walba, arrimaheeda weydiisa, la socota arrinteeda. Laakiin gabadha hooyada waxay ku hadlayso ma aysan maqli jirin. Mar walba waxay ku jawaabi jirtay saaxiibkii ay soo wacayaan, shaqadaada ma aha hawsha aan ku jiro, maxay tahay waxyaaba ay ugula hadlayso. waxyaabahaas ayay hooyadeed kula hadli jirtay. Waxayna qiimeyn jirtay nin ay xiriir ay leeyihiin. Marka aad xiriir leedahay waxaa wanaagsan xaq kasta oo lagu leeyahay inaad ogaatid. xaqa waalidkaana ogaatid, xaqa qofka xiriirka kula lena aa ogaatid. xaqa waalidka ma ahan inaa iloodo oo qofka xiriirka kugu lahay aa qiimeyso, waalidkaan aa ka qiimeyso. Gabadhan hooyadeed ma aysan qiimeyn jirin, xiriirkeeda ayay qiimeyn jirtay. laakiin hooyada mar walba waxay ku dadaali jirtay ee ka fikeri jirtay inay gabadheeda ka farxiso. mararka qaar waxay dhihi jirtay marka ay aado ninka xiriirka la dhexay oo ay ka timaado, hooyo maanta ma faraxsan tahay ayay dhihi jirtay ayadoo farxadda ilaalinayso. waxay sidaas iskula noolaadaanba. maalintii dambe gabadha waxay dhahday hooyo aniga waan baxayaa safar, waan guurayaa, ninkii xiriirka igala dhexeeyey oo saaxiibkay ahay xaggiisa aan u guurayaa, aan aadayaa. waalidiinta waxay leeyihiin nolosha dhinaceeda waxay ku leeyihiin khibrad oo nolol horaa soo martay. sidaas daraaddeed mar walba waxay jecel yihiin dhibaatooyinka waalidiinta ku dhacay iyo waxyaabaha adduunka usoo joogeen in aysan ilmahooda aysan ku dhicin. laakiin gabadha oo maskaxdeeda iyo aqligeeda madax maray ayaa ku dhaqaaqday arrintaasi. muddo dheer ayay hooyadeed ka maqneed. hooyadu waa xanuunsatay, wax casaacideeya ma lahan, wax u kaalmeeya ma lahan. jirada ayaa ku badatay. markii dambena sariirta ayay kortay. gabadhii markii ay soo laabatay oo maskaxdeeda ay usoo laabatay iyo aqligeedii ay guriga timid, hooyadeeda xanuun daran haysay u timid. markay laba kalmadood ay isdheheenna hooyada halkaas ayay ku geeriyootay. dhaxdin iyo murug ayaa ku dhacday. dhakhtarka ayaa wacday, laakiin waqtigan waa waqti aan waxba laga qaban karin oo arrinta ay ku dhacday. sidaas daraaddeed waxaa wanaagsan waqtiga ay kula gudboon tahay faa'iidada inaad ka faa'iidaysato. oo gabadhan waxaa wanaagsaneyd waqtiga hooyadeed la talinaysa oo dhihaysa xaq walba ogow, danahaada garo, oo ninka la socota ogow, oo aniga arrimey ogow markay dhihaysay ayaa laga doonayay inay maskaxdeeda taam ka dhigto oo hooyada arrinteeda la socoto. laakiin maanta aan waxba laga gaarayn ayay wax walba ogaatay. qisadeennina intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. waa mahadsantihiin. haddii aad ka heshay muuqaalkan inoo sheergareey, like inoo saar, subscribe-ka ha ka iloobin, wixii ra'yigaa noo soo gudbi. mahadsanid.